gabdhaha iyo guud ahaan dumarka waxay xoogga saaraan timahooda oo habab kala duwan ayay u shanlayaan. Qaarkood xoogaa midab ah ayay u yeelaan maadaama ay aaminsan yihiin in timuhu ay yihiin taajka quruxdooda laga dheehan karo. Laakiin arrinta la yaabka leh ayaa ah in raggu ay noqdaan kuwo timahooda ka shaqeeya siyaabo kala duwanna u daba iyagoo isku dayaya inay dadka soo jiitaan. Marcos Juliano waa arday dhalinyaro ah, wuxuu caan ka noqday barta Instagram-ka. Timihiisa ayuu siyaabo kala duwan u shanleeyaa. Markii ugu dambeysay timihiisa waxa uu u dabay qaab 3D ah, kuul, qoraallo ayuu ku dabay iyo waxyaabo kale oo la yaab badan. Iyadoo ay jirto inuu fikir kala duwan la yimid, wax baal u egna uu tintiisa ku dabay. Xilliyada qaar ayaa muuqaalkiisu wuxuu u ekaaday mid la yaab badan, laakiin daruuri maahan inuu ku qurux badnaaday. Marcos hal abuurkiisa waxa uu faafiyay sawirada timihiisa oo qaab 3D ah iyo magaca Louis Vuitton ee caalamiga ah oo uu ka codsaday inay siiyaan fursad shaqo maadaama uu hayo fikrad ganacsi oo ay shirkadu iibin karto. Cabdimajiid Cusmaan, barnaamijka Subax Wanaagsan, Goobjoog.